ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan u baahanahay hogaamiye Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran dadkiisana Allah subhanahu wa ta'ala ku xiro. Allah subhanahu wa ta'ala asagoo ka waramayo nabiyullaahi Sulaymaan calayhi salaam fariintuu u diray Balqiisa oo ahayd boqoradii Yemen buu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay innahu min Sulaymaan wa innahu bismillaahir rahmaanir rahiim. fariintan waxay ka socotaa Sulaymaan oo ah nabigii Allah subhanahu wa ta'ala. fariintaana waxaan idin soo dirayaa anigoo cuskanayo Allah subhanahu wa ta'ala, Allahaas oo ah Rabbi naxariis guud iyo mid gaar ahaaneedba. waxaan idinkugu yeerayaa Rabbigaas inaad ma aragtay xiriir wanaagsan la yeelataan. marka hogaamiyaha wanaagsan oon u baahannahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed waa hogaamiye Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran dadkiisana Allah subhanahu wa ta'ala ku xiro. waxaa kaloon u baahannahay hogaamiye danaha shisheeye ma aragtay aan u janjeerin. waxaan u baahannahay hogaamiye shisheeyaha aan dhagaysan. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay asagoo ka waramayo Balqiisa arrimihii ma aragtay ay tiri markii fariintaas Nabi Sulaymaan ay soo gaartay. Allah wuxuu leeyahay wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'u almursaluun. Balqiisa markii fariintaas ay soo gaartay maadaama ay ahayd gabar caqli badan, ay ahayd gabar hogaamiso wanaagsan ah, Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxay tiri Balqiisa waxaan u dirayaa Sulaymaan calayhi salaam xaggiisa hadiyad si aan u ogaado arrintan uu sheegayo inay jirto iyo inuu yahay nin jago iyo madaxtinimo raadina oo kaliya. marka hogaamiyaha wanaagsan shisheeyaha ma dhageysto, shisheeyaha ma iibsan karaan, shisheeyaha xaggooda uma janjeero. nabiyullaahi Sulaymaan marka hadiyadan ay soo gaartay oo hadiyadan loo keenay wuxuu yiri falamma jaa Sulaymaana markuu yimid nabi Sulaymaan calayhi salaam qaala atumidunani bimaalin wuxuu yiri ma waxaad ii taagaysaan ood ii soo bandhigaysaan ood siinaysaan hanti. sababtoo ah famaa aataani Allahu khayru mimma aataakum. Rabbi wuxuu idin siiyey oo boqortooyada ah aniga wuxuu isiiyey ee nabinimada ah baa ka wanaagsan adinku wuxuu idin siiyey. laakiin bal antum bihadiyatikum tafraxuun. laakiin adinku waxaad tihiin kuwa ku farxayo hadiyadii iyo waxyaabay aad soo dirteen. marka hogaamiyaha wanaagsan danaha shisheeye ma aragtay iyo waxyaabaha ay rabaan kuma iibsan karaan iyo hadiyadaha iyo lacagaha iyo waxyaabaha ay keenaan. hogaamiyaha wanaagsan dhag jalaq uma sii arrimahaas. hogaamiyaha wanaagsan oon u baahannahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed waa hogaamiye aan arrimaha ku degdegin, waa hogaamiye si xeel dheer ah u fikiro inta uusan go'aan gaarin. marka fariintan ay soo gaartay Balqiisa waxay iskugu yeertay dadkeeda bay iskugu yeertay. dadkeeda markay iskugu yeertay waxay ku tiri qaalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. waxay ku tiri reetolkaygiiyo dadkaygiiyo fariin baa isoo gaartay anigana ma ihi mid arrin go'aan ka gaarayso ilaa aan idinla tashto ee bal tala isiiya. ayada hogaamiye wanaagsan bay ahayd laakiin dadkan maysan ahayn. markaas waxay ku dhaheen qaaluu naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin fandurii maada ta'muriin. waxay ku dhaheen annaga waxaan nahay dad aad u daran oo dagaalyahano ah ee adiga waxaad ka fiirsataa arrinka aadna amraysid. haddaad dhahdid dagaal gala dagaalkaas waan galaynaa ee adiga un go'aankaa ka fiirso. marka Balqiisa waxay ahayd gabar hogaamiso wanaagsan ah. waxay ka fikirtay danta iyo mustaqbalka dadkeeda. markaas waxay tiri qaalat ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha. waxay tiri boqorada hadday galaan magaalo hadday galaan way fasahaadeen way qaribaan. wajacaluu acizzata ahliha adillah. dadka sharafta ku lahaana way liidaan. wakadhalika yafcaluun sidaas bay sameeyaan. marka
inta aan mustaqbalka dadkayga aan baabi'in lahaa oon dadkayga dab ku shubi lahaa fariintan isoo gaarta ee ah inaan rabbiga uunkan abuuro u hoggaansamo oon qoraxdani waxyaabahan aan caabudayno aan ka leexanno warkaas baa maqlaaya rabbina waa u hoggaansamaya marka waxaan u baahannahay hoggaamiye allah subxaanahu wa tacaala ku xiran dadkiisana allah subxaanahu wa tacaala ku xiro waxaan u baahannahay hoggaamiye si kastoo hanti loo siiyo aan fikirkiisa ka noqonin waxaan u baahannahay hoggaamiye si xeel dheer u fikiro dadkiisana aan dab ku shubin marka suuratu namal ama suuratu namli waxaan ka baran karnaa dowladnimada ayada oo dhammaystiran marka qur'aanka kariimka aan akhrino qur'aanka kariimka aan ku tadabburno insha allahu tacaala aan ku tadabburno aan fahanno si xeel dheer aan qur'aanka u dhiganno insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu